waxaa magaalada Stockholm ee dalka Sweden si diiran oo kaliya laba loogu soo dhaweeyay isla markaana soo gaadhay maayirka degmada Gabiley mudane Maxamed Amiin Cumar Cabdi waxaana gagada diyaaraduhu ka hadaan kana soo dagaan ee Arlanda Airport ku qaabilay danjiraha ama safiirka Jamhuuriyadda Soomaaliland u fadhiya wadanka Sweden Ambassador Sakariya Xasan Wacaysi iyo gudoomiyaha dalada jaaliyadaha Soomaaliland ee wadanka Sweden iyo xogayaha daladaasi iyo qaar ka mid ah jaaliyadaha Soomaaliland ee degan wadanka Sweden kuwaasoo si diiran oo kaliya laba ugu soo dhaweeyay jaaliyadaha Soomaaliland ee degan wadanka Sweden ee soo dhaweeyay maayirka ayaa ka hadlay dareenkooda ku aadan soo dhaweynta ay u sameeyeen maayirka magaalada Gabiley. waxaan halkan ku soo dhaweynaynaa maayirka Maxamed Amiin ee from Gabiley ku soo dhawow baan leenahay gacmo furan qalbi furan anagoo ka hadlaya jaaliyada Stockholm. Maxamed Amiin waxaan ku leenahay walaal ku soo dhawow dalkaagii iyo dadkaagii oo kuugu diyaara inay ku soo dhaweeyaan qalbi furan iyo caleemo qoyan iyo si aad iyo aad kal iyo laaba anigoo ku hadlaya mar labaad iyo mar saddexaadba odayaasha iyo maxaan ku dhahdaa mustaqbalka xisbiga kulmiyada. alxamdulillaah hadweyno maanta inaan ku soo dhaweyno gudoomiyaha maayirka gobolka Gabiley Sweden anigoo ka socda jaaliyada Urubro waxaan leenahay soo dhawow maayir mar labaad gacmo furan ku soo dhaweynaa. waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay gudoomiyaha dalada guud ee jaaliyadaha Soomaaliland mudane Mustafa Cabdi Ismaaciil iyo xogayaha daladaasi mudane Cali Xasan. maayirka Gabiley Maxamed Amiin Maxamed Cumar Cabdi oo aan runtii maayirada Soomaaliland ugu daada yar aan idhaahdee runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inuu halkan Sweden noogu yimaado ilaahay baana mahad leh inuu soo gaaro Sweden waxaan leeyahay Maxamed ku soo dhawow Sweden. waxaan halkan maanta ku soo dhaweynaynaa maayir Maxamed Amiin anigoo ku hadlaya xogayaha dalada guud ee Sweden maayirka waxaan leeyahay gacmo furan ku soo dhawow waxaanan insha Allah rajeynayaa intuu halkan la joogo in ilaahay mataqaana u fududeeyo shaqadu halkan u yimid iyo de wixii kulanay jaaliyada ku saabsan insha Allah waan isqaabili doonaa wixii warbixinino sidii u gaarsiiyo dhammaan reer Sweden. Jamhuuriyadda Soomaaliland u fadhiyay wadanka Sweden Ambassador Sakariya Xasan Wacaysi oo madaarka kaga hortagay kuna soo dhaweeyay maayirka magaalada Gabiley ayaa waxa uu sheegay in si diiran oo kaliya laba ugu soo dhaweynayo dalka Sweden. runtii farxad weyn bay ii tahay aniga dhammaan shacbi weynaha Soomaaliland ee ku dhaqan dalkan Sweden maraasabadan maanta aynu isugu nimi oo aynu ku soo dhaweynayno maayirka gobolka Gabiley Maxamed Amiin Cumar oo aan leenahay ku soo dhawow runtii waxaan jeclahay inaan fursadan uga yara faa'iideysto kaliya inaan maayirka iyo cidii kale ee maxay hawada naga daawanaysa ayna la qaybsadaan shaqada weyn ee halkan Sweden aan ku hayno gaar ahaan dalada guud oo runtii muddadan aan markaa xilka hayay iyo imaantika maayirka gacan weyn ka geystay oo runtii aan uga mahadnaqayo wada shaqaynta dhow ee aan wada leenahay xukuumad ahaan waxa shay ah ka safiir ahaan maanta in aan maxay kaga duwanahay wadamada kale inaanu haysano community iyo jaaliyad iyo xafiiskii safaaradda oo mid ah oo maanta maxay madaxda noo timna ay nooga marxaati kacayso. maayirka magaalada Gabiley mudane Maxamed Amiin Cumar Cabdi oo ka hadlay safarka uu ku yimi wadanka Sweden ayaa waxa uu sheegay inuu yahay mid shaqo waxaan ilaahay uga mahad celinaa subxaanahu wa ta'aala inuu nabad keeno dalka Sweden mar labaad waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa salaamanaa safiirka Soomaaliland ee dalka Sweden gudoomiyaha dalada guud ee reer Soomaaliland dalka Sweden xogayaha mas'uuliyiinta kala duwan ee magaalooyinka dalka Sweden jaaliyada Soomaaliland u qaabilsan haweenka iyo hablaha sharafta leh waxaan uga mahad celinayaa soo dhaweynta maamuuskeedu sareeyo oo maanta ay hay maalin shaqo oo safarku runtii ku soo beegay maalin shaqo ay ilaa 2 saacadood runtii soo dhaweynteeda halkan diyaar ugu ahaayeen waxaad leeyahay aad iyo aad ugu mahadsantihiin sidaa sharafta iyo qiimaha leh noo soo dhaweyseen
waxay ka turjumaysaa waxa weeye wanaagga iyo wadaniyadda idinku jirta waxaan jecelahay runtii muddo kooban ayaan safar shaqo u yimid dalka Suudaan waxaan rajaynayaa ilaahay idankii in hawsha shaqana aynu ka wada qayb gali doono gaar baan isu wareysan doonaa insha Allah waxaan jecelahay inaan u mahad celiyo guud ahaan dadweynaha reer Soomaaliya dalka Suudaan maayirka golaha deegaanka ee magaalada Gabeeley ayaa muddo ku sugnaan doona magaalada Stockholm ee dalka Suudaan waxaana kulamo kala duwan uu la qaadan doonaa dhigiisa magaalada Stockholm waxaana la filayaa inuu u safro wadamada kale ee ku yaala qaarada Yurub gaar ahaan wadamada Scandinavian-ka kaasoo mari doona jaaliyadaha Soomaaliland ee wadanka Suudaan haddii Allaha wada loo ogolaado Axmed Saki Daahir Xasan warbaahinta qaranka Soomaaliland magaalada madaxda wadanka Suudaan ee Stockholm